Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamka waxaa ugu dooran Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shaki badan abuuray la yeeshay imaamka beelaha Mudullood iyo xaalka jira jawiga siyaasadeed ee xamar ka socday arrimaha soo kordhay. Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo shirarka Doobley uu ka bilaabay duulaan nooc cusub ah ciidamada la rabay in uu geliyo iyo shirqool mar kale fashilmay sida la leeyahay. waxaa laga ogyahay xogaha ka soo baxay qaabkii loo dilay taliyihiisa liga booliiska degmada Afgooye Cabdulqaadir Mursal Nuunow tuhunna jiray iyo saacado ka hor inta aan la dilin taliyaha waxa uu warbaahinta u sheegay khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadana weji kale ayuu yeeshay. Midowga Yurub iyo weliba dowladda Ingiriiska ayaana biyo qabow waxa ay ku shubeen dagaalka jiray iyo sida loo xallin karo. Gabadha Soomaaliyeed ee u dhaxda jilaaga caanka ah ee Idris Alba oo iyana laga helay caabuqa coronaviruska. wasiiradii iyo xildhibaanadii heer federaal ee beedhabo gaaray waxa kulan heshiis ah ay la galeen madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Laftagareen hawiye oo ku qasbay madaxweynaha koonfur galbeed in kuraastoodii laga siiyo baarlamaanka maamulkaas dibna loogu laabto kuraasta qaar ee hore beelaha loo siiyay. Puntland oo u soo jawaabtay hadalkii kasoo yeeray shalay axadii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan ee Soomaaliya Xaliime Yarey khilaafka jiray oo sii cuslaaday xilligan. qodobka dibaddana waxaa ugu dooran 24 saac gudaheed oo 349 qof cudurka corona ay ugu dhinteen gudaha dalka Spain. u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan haddii Ilaahay raalli ka noqdo. waxaad nagala socotaan shabakada wararka maanta. taariikhdu waxay ku beegan tahay 23 bisha 3 ee March sanada 2020. warkii oo fidsan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kulan xasaasi waxa uu la yeeshay imaamka beelaha Mudullood. shirka ayaana la sheegay in uu ahaa mid albaabada u xirna waxaana ay labada dhinac ka wada arrinsadeen xaaladda siyaasadeed, arrimaha doorashada, hanaanka iyo weliba sida beesha in ay u taageerto la rabo siyaasiyiinta ka soo jeeda Mudullood ee murashaxiinta u ah madaxweynaha Soomaaliya. madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu muujiyay dadaalka uu ku bixinayo dalka nabadgelyo rasmi ah sidii uu uga keeni lahaa, isagoo shaaca ka dhigay in markasta ay ku dadaalayaan sidii loo heli lahaa qorshe cad oo dowladnimada Soomaaliya cagaheeda dib loogu soo celin lahaa. waxaana uu yidhi Sheekh Shariif, waxaa sharaf ii ah inaan mar kale hoygayga magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyo imaamka Mudullood Imaam Maxamed Yuusuf Cali Iimaan, ugaas Maxamuud Cali, ugaas Cabdulle, dhaqankii kale ee la socday iyo walaalkii xildhibaan Cabdulqaadir Cusable Cali. hogaamiyaha xisbiga Ilays ayaana uu yahay xildhibaanka, waxaana madasha xisbiyada qaran aan mar ka wada tirsanahay ayuu yidhi xildhibaankaasi. waxaana kulankaas la sheegay in arrimo dhowr ah lagu falanqeeyay. kadib waxaa la isla soo qaaday xaaladii ugu dambeeyay dalka, inaga oo sidoo kale ka wada hadalay dadka gobolkan Banaadir xuquuqda ka maqan ee federaalka iyo sidii la isaga kaashan lahaa dhaqan iyo weliba siyaasiyiin intuba. tani waxa ay muujado siyaasadeed oo hor leh oo ku kicinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku tilmaamayaan mid muujin karta xaaladda inay sii cuslaan karto. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda beelaha Mudullood waxay sheegeen in ay muhiimadu tahay sidii loo heli lahaa qorshe cad oo keeni kara sidii ay dowladnimada cagab buuxda ugu istaagi lahayd, iyagoona sheegay in loo baahan yahay taageero la siiyo dhinacyada siyaasiyiinta ah ee hadda doonaya in ay wax ku soo kordhiyaan qarankan. waa tahay daawadayaal, qaybaha hore ayaa daawanaysan warbaahinta wararka maanta. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu si kulul uga hadlay ugana jawaabay hadalkii ka soo yeeray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya. gudoomiyaha guddigaas Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey oo saacado ka hor warbaahinta kula hadashay Muqdisho ayaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka dalbatay inay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada dalka. haddaba madaxweyne Saciid Dani ayaa arrintaas ku tilmaamay
mid aan suurtagal ahayn isagoona hadalkeeda ku tilmaamay Xaliimo Yarey mid tallaabo lagu fashilinayo gogasha wadahadalka Garowe ee Puntland ka fidisay guddiga doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya. hadalka ay hadda soo jeedinayaan ma aha mid sharci ah, waa hore ayaa la ansixiyay laguna taageerayo waxaan u arkaa mid looga hordhacayo dadaalada ay Puntland wado laguna fashilinayo gogasha wadahadal ee Garowe la dhigay, waana tallaabo labaad oo jidgooye ah marka laga soo tago war saxaafadeedkii wasiiradu ay ku qabteen Garowe dhawaan. tani waxa ay xaaladda si cakirin kartaa baa la yiri dagaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka dhex jira. dhinaca kale dowladda federaalka ayaa mar kale ku fashilantay shirqool ay la rabtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo ay ku soo qaban lahayd. qaar ka mid ah siyaasiyiinta waxay sheegeen in loo baahan yahay helitaanka si dhab ah oo loo wajahaa la yiri qorshe muuqda oo lagu heli karo sidii mar kale dowladdu ay la rabtay in lagu xiro wasiir Janan. shalay Axadii ayuu ka degay magaalada Dhobley kulamo ayuuna ka bilaabay halkaas. ciidamada ayaana uu la shiray iyo saraakiishooda waxaana uu rabaa duulaan nooc cusub ah in Cabdirashiid Janan uu ku qabsado magaalada Beled Xaawo. dadka qaar waxay sheegeen in tani ay muujinayso xaalad cakiran haddii aanan si dhab ah dowladda federaalka kaga fakerin waxyaabaha ka dhalan kara mar kale in la xiro wasiirka amniga Jubbaland oo hadda deegaanada Jubbaland ku sugan meelo kamid ah. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo wasiir Cabdirashiid Janan ayaana la sheegay in ay ka arrinsadeen dadaalka dib u xoreynta deegaanada dowladda ciidankeedu ay la wareegeen gobolka Gedo shabaab iyo in laga saaro deegaanada ay wali ka joogaan Jubbada Dhexe iyo waliba qaybo kamid ah gobolka Jubbada Hoose oo ay Jubbaland caasimada Kismaayo ku howlgalaan. gobolka Gedana waxaa la sheegay ka hor shabaabka in dowladda in laga qabsado ay muhiim tahay sida ay isku afkarteen hoggaanka Jubbaland ee ku shiray magaalada Dhobley. waa tahay daawadayaal weli waxaad la socotaan muqbaahiyaha wararka maanta. safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya u jooga Ben Vender ayaa ka hadlay arrimaha dadaalada ay beesha caalamku rabaan in ay wadahadal u dhex maro dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah. safiir Ben Vender ayaa sidoo kale sheegay in haddii dhinacyadu wada hadlaan oo heshiiyaan fursad loo helayo in laga faa'iideysto deen cafinta doorashooyinka oo ku dhaca waqtigooda iyo ka hortagga cudurka coronavirus-ka. wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyayaasha maamul goboleedyada waa lama huraan si looga faa'iideysto dalka deen cafintiisa lana keeno doorashooyin toos ah oo qaran ayaa la yiri oo waqtigeeda ku haboon waafaqsanna sharciga cusub iyo waliba wax ka qabashada coronavirus-ka. waxaan soo dhaweynayaa tallaabooyinkan isla markaana ay muhiimad gaar ah u leedahay dowladda dhexe. danjiraha midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya ayaa isagana waxa uu ka hadlay xaaladda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka dhex jirta. waxa uu daba socday qoraal ka soo baxay qaramada midoobay maalintii Sabtida ahayd ee toddobaadkan oo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya sida kaliya oo ay wada hadallo u yeelan karaan ay tahay inay muujiyaan isku tanaasul. ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya Barlanka Martinez ayaa waxa uu ku raacsan yahay qaramada midoobay sida uu sheegay sidaas oo ay tahana ay rumaysan yihiin in iyada oo la isku xirayo mabaadi'da iyo garowshiyaha la sameeyo tanaasul ay tahay sida kaliya ee wadahadal siyaasadeed loogu jeehin karo wadada saxda ah ee Soomaaliya. haddaba waxa dadka qaar ay sheegeen in tani ay muujinayso yadadiilo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay sameynayaan ka hor inta aan la gaarin doorashada baarlamaanka ee sanadkan dhamaadkiisa dhici doonta. waayahay gabagabada ayaan soo gaarnay daawadayaal, bal markana aan fiirino. Sabrina Dhowre oo ah xaaska jilaaga Hollywoodka ee Idris Elba ayaa xaqiijisay inuu ku dhacay fayraska corona toddobaad kadib markii fayraskaas laga helay saygeeda. Sabrina oo ah gabar Soomaali ah ayaa waxaa qaba jilaagan Idris Elba waxaana uu difaacay go'aankii ay ku agjoogtay saygeeda isla markaana xilli uu ku jiray karantiil. waxay u sheegtay barnaamijka cusub ee Oprah Winfrey oo ka bilowday Apple TV Plus inay doonaysay la joogitaanka saygeeda Idris isla markaana ay dareemaysay
dabciga xaasnimo ee ah in ninkeeda ay daryeesho. lamaanaha ayaa ku sheegay wareysiga in ay hadda ku jiraan karantiil ayna ku sugan yihiin gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka, halkaas oo jilaaga filimkiisa ugu dambeeyay lagu diyaarinayo. qodobka dibadda intaanu aadin daawadayaal bal aan ka hormariyo wasiiradii ka tirsanaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaanadii gaaray magaalada Beedhaba ee caasimadda gobolka Baay ayaa waxay kulan la qaateen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Laftagareen. xubnaha beelaha Hawiye ee ka socday wafdiga la kulmay madaxweyne Laftagareen waxaa hogaaminayay wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Islow, iyagoo sheegay in ay is-afgarad u dhex maray madaxweynaha Koonfur Galbeed dibna loogu laaban doono sida la sheegay. xubnaha beelaha Hawiye laga siiyay tiro ahaan kuraasta baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed. qaarkood dadku waxay sheegeen in tani ay muhiimad gaar ah u leedahay sidii loo gaari lahaa xaalad ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku qanci karto maamulada soo baxa si doorashada qaranka ay noqdaan kuwa loo tartamo kuraasta, maadaama maamul goboleedyada cidda ku awood badan baarlamaanka ay xubnaha ka soo baxaya gacanta ku dhigi doonto, taasoo loo wada rucleynayo madaxtinimada dalka. xildhibaan Cabdulqaadir Carabow, senator Cabdi Axmed Dhuxulo Dhagdheer iyo weliba xubno kale ayaana ku weelinayay wasiirka amniga Soomaaliya kulanka ay Beedhaba kula yeesheen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen. waxaana is-afgarad hordhaca la sheegay in uu dhex maray taas oo ku aadan in laga qanciyo Hawiye kuraasta baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku yeelanayaan. halkaad warkaasi ka daawanaysaanna waa muqbaahiyaha wararka maanta, bal markana qodobka dibadda. haddaba waxaa la leeyahay dalka Spain ayaa isagana noqday mid kale oo xaalad adag ay ka jiraan marka la eego dadka u dhimanaya caabuqa corona. 24 saac gudaheed waxaa la xaqiijiyay in 349 qof ay cudurka u dhinteen, 1700 ay dhimashada guud dalka Spain gaartay. wasaaradda caafimaadka dalkaas waxay sheegtay in 1326 qof hal maalin ay tirada uu soo ritay ahayd, waana xaalad aad cabsi u reebtay. wadamada Yurub ee sidoo kale cudurka saameeyay waxaa ka mid ah in Faransiiska 112 qofood ay dhimashada gaartay sida la sheegay maalmo gudaheed. hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa la xaqiijiyay in cudurka corona ay dhaqaatiirta baaritaan ay ku sameeyeen laga helay. afayeen u hadlay dowladda Jarmalka ayaana axadii gelinkeedii dambe shalay shaaciyay in la karantiilay oo xaaladeeda hadda ay yara wanaagsan tahay. hogaamiyaha Jarmalka haweeneyda awoodda badan dalalka Yurub ku leh ee Angela Merkel. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen shabakada wararka maanta. intaan wararkan oo kale dib isku arki doono nabadgelyo.